gudoomiyaha xisbi xaakimka kulmiye Axmed Maxamuud Shirwac iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan isla xisbi xaakimka kulmiye ayaa xariga ka jaray 45 xafiis oo xisbi xaakimka kulmiye ku yeelan doono gudaha magaalada Gabiley. Gudoomiyaha xisbi xaakimka kulmiye ee gobolka Gabiley Axmed Maxamuud Shirwac oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay 45 kan xafiis ee maanta xariga ka jareen. waxaanu joognaa xafiis ka mid ah xafiisyada gobolka Gabiley oo kamid ah xafiisyada la furayay waa sanadkii iyo Gabiley iyo guusha dhalinyarada hayaan ha noolaato xisbiga kulmiye waxaynu isku ognahay xisbiga kulmiye iyo guul waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacse Som News TV Gabiley.